kulanka khamiislaha ah ee yeeshaan golaha wasiirada ee xilgaarsiinta uu gabanayana ra'iisul wasaaraha dalka mudane Maxamed Xuseen Roble ayaa saacadii ugu dambeysay waxa ay ansixiyeen magacaabista taliyaha hay'adda NISA ama hoggaanka NISA oo loo magacaabay Mahad Salaad oo isagu waqti xadarkan xiliban golaha xilgaarsiinta ee xukuumadda ra'iisul wasaaraha ayaa ansixiyay magacaabista taliyaha cusub ee hay'adda sirdoonka qaranka ee NISA loona magacaabay Mahad. Magacaabista taliyaha ayaa imaanaysa xilli laga joogo 10 maalmood kadib markii xilka uu la wareegay madaxweynaha cusub ee dalka mudane Xasan Sheekh Maxamuud. Mahad Salaad ayaana ka mid ah saaxiibada aadka ugu dhow Xasan Sheekh, wuxuuna qayb weyn ka qaatay in mar kale dib loo doorto Xasan, wuxuuna ka mid ahaa siyaasiyiintii ololaha weyn ugu jirtay isbeddelka hogaamineed ee siyaasadda ee dalka ee xilligii doorashada. Mahad Salaad ayaana sidoo kale waxaa lagu xasuustaa inuu ka mid ahaa siyaasiyiintii sida adag uga soo horjeestay muddo kordhintii baarlamaankii 10aad ee u sameeyeen madaxweynihii hore ee dalka mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Mahad Salaad oo inta badan lagu xasuusto ciidamo loogu magac daray badbaado qaran oo xilligaasi la aasaasay kuwaas oo qayb ka mid ah magaalada Muqdisho ay deganayeen. Hay'adan loo magacaabay Mahad Salaad ee NISA 3 sano ee lasoo dhaafay waxaa dul hoganayay ama hareeyay fadeexooyin waaweyn ay ka mid tahay kumilanka siyaasadda dalka, caburintii dadkii ka soo horjeeday dowladda Farmaajo iyo sidoo kale dilal qarsheysan oo la sheegayo in ay hay'addu iyadu ka dambeysay. Hay'adan oo hore uu hogaaminayay Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayaa xilkaasi waxaa ka qaaday ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble kadib fadeexad dhalatay oo ku aadanayd dilkii sargaalada Ikraan Tahliil Faarax oo iyadu la sheegay inay ku baxday gacanta hay'addaasi NISA. Mahad Salaad inkastoo khibrad xoogan oo dhanka ciidanka uusan lahayn, haddana sanadii ugu dambeeyay ama 10 sano ugu dambeysay waxa uu ku jiray siyaasadda, waxa uuna ahaa xubin ka tirsan baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya. Waxa uu soo noqday wasiir ku-xigeen iyo sidoo kale wasiir dowlaha madaxtooyada xukuumadii hore Xasan Sheekh xilligii hore. waxaana aad sidoo kale dadka siyaasadda darasada dhanka amniga iyo waliba ciidamadaba ay sheegayaan magacaabista Mahad Salaad ee xafiiska Villa Soomaaliya inay tahay bal yiri mid ku saleysan awood qaybsi iyo waliba sidoo kale isbedel siyaasadeed. inkastoo dadka qaar ee siyaasadda iyaguna aad kaga falowday ay sheegaan in magacaabista Mahad Salaad iyadu ku qotoomi karto argoosi siyaasadeed loo saleynayo isbedelka ku yimid hoggaanka dalka uu ku soo baxay Xasan Sheekh Maxamuud. xilligii uu hogaaminayay dalkan mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa la xasuustaa caburinta siyaasiyiinta ka soo horjeeda ee mucaaradka ahayd iyo weerar qaar oo loo geystay madaxdii hore ee dalka soo martay, iyadoo taasi ay ka duulayaan bal yiri kooxda Xasan Sheekh waxa ay isku ballaarin doonaan guud ahaanba hoggaanka dhanka ciidamada, iyagoona la sheegayo in qof kasta oo loo dhiibi doono ciidamada noqon doono koox ka tirsan kooxda Xasan Sheekh, isla markaasna ay noqdaan bal yiri koox argos siyaasadeed isku diyaarinaya. waxaana ololihii uu ku soo galay doorashada xilligii kambeynka uu ku jira Xasan Sheekh kamid ahayd inaysan argoosi siyaasadeed jiri doonin, balse taasi waxaa wararka hoose la helayay sheegayaan inay meesha ka baxayso haddii ay dhacdo bal yiri in kooxda Xasan Sheekh ay bilaabaan argoosi siyaasadeed ku taleysan awoodda dalka maadaama ay iyagu ku guuleysteen doorashadii dhacday. wararka soo baxaya sidoo kale waxa ay sheegayaan in xafiisyada ugu sareysa ee dalka ee qaarkood laga dareemayo isbedelada dhanka hoggaanka iyo magacaabista uu wado madaxweynaha cusub ee dalka Xasan Sheekh, iyadoona ilaa hadda uu magacaabay in ka badan 7 qof. xafiisku waxa uuna joogaa muddo ka yar 2 isbuuc.